السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلام يا ميل الباجوكتان أرديدي إذا شرفتي قيمها قايها بدن اسكسون نقشو وناكسن عشر كينا مانتو وحودا عيا سيدة reflexive pronouns form reflexive pronouns end with self singular or selfish plural usages. Reflexive pronouns are used when the subject and object refer to the same thing or person. What? Reflexive pronouns waa magacayaasha halka jumladkooda jira amba magaca isku soo noqnoqda. Reflexive pronouns isaga ayaa dib isku falaasha alminis form qaacidadiisa reflexive pronouns end with self singular or selfish plural waa kan ku dhamaada self singularkiisa markuu kaliya yahay or selfish plural markuu jamac yahayna wuxuu ku dhamaadaa selfish. Plural waa markuu pluralka yahay usagekiisa habka loo isticmaalo waa reflexive pronouns are used waxaanu isticmaalnaa when the subject and object refer to the same thing or person markii subjectiga iyo objectiga ay ku dhacayaan same thing hal shay or a person amba hal qof ay ku dhacayaan ayaa loo isticmaalaa reflexive pronouns. Singularkiisa iyo pluralkiisana hore u soo sheegnay waxaa gala self iyo selfish waayahay tusaale ahaan examples 1 waa example 1 Umar made himself breakfast. Umar wuxuu sameystay quraac uu sameeyay waa himself waa singularki self ay raacay isaga nafsadiis qofka sameeyana waa isaga labadaba marba wuxuu sheegaa waa one person hal qof. Okay 2 my dad accidentally cut himself with a knife. Aabbahay ayaa si shil ah isku jaray isaga himself with a knife mindi ayuu ku jaray gacantiisa si emergency ah so isku noqonayaan such as examples kale oo badan waa la imaan kartaan sidan oo kale I can help myself, you can learn yourself. Okay wixii faalo iyo tusaale ah waxaad igu reebi doontaa dhanka hoose ee commentiga. fadlan nala ilaali xuquuqda channelka subscribe